maareeyaha wakaalada burco mudane Fadxi Axmed Cabdilaahi ayaa ka jawaabay sababta ilaa waqtigan ay u shaqayn waayeen kaydad biyadii magaalada Burco muddo aan shaqaynaynin isagoo eedaha dhakada ka saaray shirkadihii qaatay qandaraaska dhismaha kayd biyadyada ee aan shaqaynin waxaanu kaga jawaabay hadii aan warbixin kooban ka siiyo laga sameeyay xilliyadii aan anigu meesha jooganahay 2015 ilaa 14 qaabkii loogu talagalay inay u shaqeeyaan aan dhameystirnay oo aanay lahayn lingaxyada biyaha celin jiray taangiyadu ay biyaha ku celin jiray wax biyana celinayaan waa koo kalabaad meelaha qaar kood beebkii loogu talagalay inuu direct ceelka uga soo qaado oo uu saaro taangiga oo aan loogu talagalin wax connection ama supply in laga sameeyo ayaa wax laga sameeyay ugu yaraan 40 ama 50 ama boqolba connection oo kala beebkii laga duway marka awood uma yeelanayo beebkii inuu biyihii saaro taangigii waayo de connectionadana waxay keenayaan inuu neefsado awoodeedii iyo pressure-kii lagu talagalay meesha ku furana inuu hoos u dhaco taasi marka waxay keentay inaanay suuro gelin karin in biyo taangigii fulaan waxa marka la isku dayay in la sameeyo barkad weyn oo laga hoos qodo 100 mitir cubic oo laga hoos qodo taangiga kadibna inta bam la saaro lagu saaro taangiga markaas si qaybiyo magaalada gaarsiiyo biyaha taasina waxay noqotay in kharash fara badan ay u baahan tahay ilaa lacag 150,000 ilaa 130,000 oo dollar sida lagu qiyaasay markii la qiimeeyay taasina aanay suuragal ahayn xilligan cid bixisaan aanay jirin annaguna aanan wax awood u lahayn marka taangiyadaasi waxay noqdeen inay noqdaan kuwa aan shaqaynin oo aan haba yaraatay de wax manfaacay soo kordhiyaan aanu jirin oo imika formality bay isaga taagan yihiin laguma talagelin de quruxuna ay tagnaadaan inay wax qabtaan baa lagu talagalay wixii loogu talagalay inay qabtaan geesta kale maraan wax ka weydiinay qaabka kale looga wareegi karo ee uga qorshaysan wakaalada biyaha magaalada Burco ayaa waxa uu kaga jawaabay runtii magaaladu horta ma ilahayn systemkan storage-ka la yiraahdo ama kaydka taangiyada magaaladu biyo lagu kaydiyo ma laha waa ceelku biyaha ka soo saara ilaa guriga marka laba taangi baa imika ay qoladan la yiraahdo SDF saduuqan horumarinta Somaliland ayaa waxay bixiyeen laba taangi oo ku kala yaala bariga iyo galbeedka magaalada Burco labada taangi imika waa gabagabay marayaan oo waxaan filayaa inay waqti dhow soo gabagabay doonaan bishan January la dhameystiri doono beebkoodina wala dhigay midna uu dhameystiran yahay midna beebkiisa imika la wadaa taangiyadiina wax yar baa waray labadaas waxay noqon doonaan labada taangi ugu horeeya shaqo gal hadii Allah uu dalay ka noqdo marka labadii taangi imika iyagu waa gabagabo oo kuwaas insha Allah aan ugu talagalay in ay qabtaan ama meelihii kuwii markii hore maadaama shaqeyn waayeen in kuwaas shaqeeyaan Maxamed Saciid Gaxnuug RTN Burco.